السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadkayga asxaabtayda familkayga meel walba joogta waan salaami insha Allah biidnillah caafimaad iyo khayr ayaan rajaynaa oo tana ku noolaashi barwash bash iyo barwaaqo okay sheeko macaan badan oo qatar ah maanta noo wada waana macdahe nihayadeeda ay macaanaysaa laakiin dhexdeeda xoogaa yar qalq walwal iyo cabsi ayay leedahay diyaar ma tihiin inaad dhegaysatiin sheekadan horta ku aad iyo aadaan ugu helay way ugu socotay bilowgeeda ilaa dhammaadkeeda saas iisii ka fiicnaan rajeynaa inagana washaan soo siinaa diyaar haddaad tihiin ha u gudagalna marka maalin maalmaha ka mid ah ayaa wax dhacday gabar oo da-deeda ah 12 jir oo iskool tagto iskoolka laga keeno macnaa basaa geeyo basaana kasoo celiyo okay so gabadhii gabar aad da-deedu yar waayo laakiin maxaa ku dhac doonaa waayo marka subxaan allah adduunyada wax walbaa dhacooya wax walbaa dhacaayo wax walbaa socdo sida aan u jeedno aakhir zamanka ahaan maan dhehaynaa sida ay weligeeda waxyaabaa dhibka badan ama waxyaabaa xun way dhici jireen waxyaabaa fiicanna way dhici jireen because of shaydaanna ilaah wuu abuuray malaa'igna ilaah wuu abuuray so shaydaanka iyo malaa'igta nin walba hooshiisa wuu haystaa sidaan ognahay okay so maxaa dhacay waa gabadhaan ku dhacay marka maalin maalmaha ka mid ah marka waxaa dhacday gabadhii iskoolka marka laga soo celinayay ama baska laga soo naqnayay ayada nidaamkeeda waxaas ahaa jiri meesha ay degan tahay waa meel buur ama meel fog ayay degan tahay mar walbo ayadaa lagu dambeysii jiray meesha oo xaafadeeda markay dadka la dejiyay macnaa dadka la dejinay ayadaa ugu dambeysa dadka la dejinay ay ka mid tahay qofka ugu dambeeyo macnaa ayadaa la dejinay okay so dadka dhan markood dejiyay ayada markay isdejinayeen maanta waxaa dhacday qisada ahaan xaafadeeda ma geenin heelo wuu jiiray meel kale u jiiraystay markaasay dhehaysaa xaafadda waa ka gudubtay ama meel kale had u leexatay jid khalad ay qabatay ma dareemoosid miya shufeerkay leedahay marka yani xaafad kale ama jid kalena oo khaladanna qabanoosid ma dareemoosid miya wuu iska dhaga tiray tamaaman yani nin maqlayna iska dhigoya baskii wuu sii wadaa wuu sii socdaa adeeray leedahay gabriyer waay adeer jidku waa gaftim dareemoosid miyaa ilaa ninkaa meel kale xaafad meel oo dibid oo geesto ayuu qorshaystay shaydhaankiyaa soo buuxiyey ninkan khalaas go-aan oo xun faaxisho khalaas maskaxdiisa kusoo qorshaystay inuu ku kaco marka subxaan allah shaydhaankiina oo bushgareynaa marka shaydhaankiina oo bushgareynaa anyway sheekadiisii u socotay marka baskiis wadi meel oo marka go-doon ah meel oo dibid ah oo meel dad dhan muslim dad dhan ka dhaweey marka u gaaray baskii oo joojiyey qoftaa marku ay dareentay inaas qofkaan wax fiican ama khayr ka soo socon shar waxaan ka ahayn ka soo soconin waxay isku taraay garaysi marka inay cararto oo baska albaabka gadaal ay ka tagto ay cararto qofkaana tiri waaye waa loo garaystay albaabday agtiisas markii uu soo cararay intii ay baska ka degeen wuu qabsaday للأسف الشديد faaxishadii ama waxyaabihii markaas qalbigiisa ama maskaxdiisa ku jirtana sameeyay gabadhii yareed inuu kufsado ayuu sameeyey adduunka wax la arkeyni male okay gabadhii oo kufsaday markaasoo dhahay markuu dhammaystay waxaad ogaataa tahdiid ay carabtay yani handadaad af soomaali waxay oo dhahay haddaad isku daydid ama inaad ku fikirtid inaad ehelkaaga ama familkaaga u sheegtid waxaad ogaataa aniga kuma naxariisanay saan iyo sii qadarnaan ku galaa sii xunaan ku galaa sidaan ku yeelaa saanaan ku yeelaa qofa u sheegaysid male sidii marka baskii qoftii xaafadeeda oo keenay uu dejiyey uu dhaqaajiyey marka qoftaa marka walwal iyo surprise mufaaji ay ku noqotay yani waxay sameeyso intay war ay ka bilaabtaa maxaad samaysaa yani gabriyer oo nin weyn u tagay qoftii marka dhibaato badan ay la kulantay qolkeeda gasharta ku oyti maalintii ugu horeeyay maxaa kugu dhacay hooyadeed waxaa oytinka qolkeeda isku soo xirtid oytin ay kala daashay dhankeeda tacbaan ay ku gaartay ayeeyadeeda usoo gashay marka hal guri wada tagiin ayeeyadii marka way shakisan tahay waxbay macnaa shaki ma aha waxyaabahaas exactly ay soo samaysay laakiin waxay ka shakisan tahay gabadhaan dabeecdeeda ma hansaan ama sidii ay ku ogeed ama wax badan baa ka duwan macnaa wax badanaa iyada ka qaldan soo markii ay wareysato gabadhii wax ma sheegayso oytin
calaacal iskoolkii maalintii kale markaa gaar ma baxay sidoo ma baxay dhahday waxbay ku eer sheegatay iskoolka markaan tagay dhahay halwasa ay dhaha carabta macnaha halwasa waxyaabaa oo jini la arkaayo ama cod sootman oo yaab leh ay ma maqlaysaa waxyaaba argixis oo kale kaligeeda leh ma maqlaysa dad kale maqlaynin ama iskoolka waxaa ka jirin oo ayada la arkayso waxyaabahaasan dareema xoogaana kanasta ayaan rabaa ay ku eer sheegatay maalintii koo maalintii labaad dhiig oo macnaha dhiig iska soconaayo hoosteeda markay muqso sheegay iyo qarqaris intay haysi wixii qarqari karto way qarqarisi laakiin wax qarsaa maayo maahana arrintii arrin le inuu gabar yar oo arrintaas qof weyn oo yani waxaas la kulmay arrin foolxumadaas ama falxumadaas sameeyey macnaha wax qarsamaayo maku noqon ayadii xoogay saartay inay ogaato ayadii marka way kasoo saartay warkaas ay dhehayso sida kuu dhacay waa inaa ii sheegtaa adiga dabiicad matid yani طبيعي متي طبيعي مركيت متي والله يعني عادي خوف نورمال متي سوينا اي شيكتا انتي ارنتام اي ويناني ام وحوين اي وحوين كوسي نقنين وانا اي شيك وحي اني انك قبا كرو سيدا او قبتو قبل مرك ارنتي او شيكاس سي وحو داين اني واقريه دحدي وحي سي وحو جيران وحانيتي يعني وحون نساهرتو كو وجيدا هل haddii aaba u sheego ama hooyo u sheego maxaa dhac doonaa maxaa isbedeli doonaa may ku dili doonaan see wax u dhacaayo absolute naftirkeyga waxay ugu tahay wax surprise yani wax ari macnaa wax fiican wixii dhacaya ma ogi futureka si wax u dhacaya ma ogi sidii wax naftirkeyga waa isku dadarsami isku dadarsami dhankeyga waxaan ka bilaabo ama sheeka meel aan ka bilaabo ama si wax u sheegay ama yaa u sheegaa wax fiican waxaan kala ogaaya male ee ayay maxaan sameynaa marka ayadii marka waxay taraagaraysay inay wado oo marka meeshay degan waa meel tuulo oo kale waa islaam weynaa jirto oo marka oo malisa camal ah ama hablaha oo dhadhaliisiso qoftii u geesi inaa la hubsado gabadhan say wax u jiraan gabadhii markii la fiiriyey gabar ma aha uurnay leedahay ayaa kusoo baxay sidii caddeen macnaha oo macnaa ay soo saartay ama xasba khibrad si ay u leedahay islaanta oo marka oo islaamaha dhaliisiso markii sida la ogaaday ayadii marka waxay taraagaraysay inay aabaheeda ay u sheegto arrintaas arrin weyn waaye indii wax laga qabsado oo kale ee qofkii saas kusoo sameeyey inaa la ogaado aabii markii loo sheegto ko aabaha sheekada maqlaya maana uloo soo qaatay oo adagoo kii oo iskoobaha oo kale siis oo u garaacay hal gacan iska jabiyay gabadh hal gacan waa ka jabtay siis oo u garaacay yooting iyo xanuun iyo wax siis oo u hay sheek yaasas uu sameeyay kii baska sameeyay dhaay shufeerkii uu sameeyay shufeerkii marka waxaa la taraagaray inaa la soo qabsado oo xooga saareen si ay kusoo heli lahaayeen marka shufeerkii markii la raadiyay oo inta karaadis baskii yaa shufeerkii bas almuhim waa lasoo ay soo ogaadeen laakiin waxay soo ogaadeen lilasaf shadiid shufeerkii wuu baxsaday magaaladiis oo tagay magaalada mabuu dhalinaysaa markaas magaaladaas u dhashtay macaan sheekadan carbahay ka dhacoosaa marka soo asigii wuu gooyey nin carabtaas meesha u dhashay maba ahaanba wuu gooyey marka shufeerkii magaaladiis oo tagay macnaato meel ay ka qaban karaan male marka waalidkii يعني أبيه قبل يوحو جوكسدي معنا خلاص عيب هلانا وفيلم مربي عيب تان إني دتك أوجادا فملك مركب وحكي كوبيهن قبل أيضا لقبل أيك خبان إيو أفر ويل أيضا لي أبيه إيه هشان قبل هشان قبل مركب حسداي خلاص وياك دمتين حل وحلس وفيري أسقوان وجاري ميل مهجورة أو مقالة حافظ أصلاً كدير جوري أو بقول سنة كهر لدقناي عمل أو تدمي أو خلاص ضد بني آدم دقين لهويس يعني إنس بني آدم دقو أو مهجور دون سنة لنا عيال كدنجيس فوق سن الباب ديس لأن أو دقوريال كأ بولال كأ أو كدمات لنا أنا كفوق سن أو خلاص كان بني آدم دقن مدهيس ما بدي كربي أصلاً مرهور على ودن بيجورياسيتي إن بقول سنة سنوين بدن يعني إن بني آدم أسكت أوادو soo marka meel oo waxna ku yaala oo yani magaalada ka baxsan soo inuu gurigii isgeeyay waa adeerkeeda iyo adeerka abkisto heer roonay black aabah inas wijigeeda arkadan absolutely yani inas dilaless rawaa disba arko inas kawka siiyay bas yani خلاص okay mar guriga la geeyay
hal qolaa marka lagu xiray awoodta ayayada waxay samaysay markii la wadaayo oo khalaas aabaha go-aanka gaarayso isahanaan ku sameynaa ilay ka dhalayso markay dhashane go-aanka ay gaareen markay dhasho wiil gabar wixiis noqdaba inay masaajidka geeyaan oo gabadha markaasid guriga la keeno oo haddii qof lagu daraayo ama qolna liskaga xiro cunto ay abto ay jiifato bannaan dhan ay arkin ay go-aan ku gaareen marka go-aankaas ay gaareen marka intii dhalaysanin inay guriga u joogin oo meeshaas go-doonka ah oo duduunsana la geeyo waa labada muhiim gurigii meeshii la geeyo marka ayayadu waxay samaysay markee oo saas go-aankaas la gaaray oo aabahaas gaaray aragtay boorsada dharka waxay u xareysay ay waxay u gelisay hal toosh waxay u gelisay hal kutub qur'aan ah waxyaabaas camal dana oo macnaha isku sii muhiimad weyn meeshaas loo wadana maadaama loo sheegay toosh oo macnaha waxay ku aftiinsato adeerka iyo waxna wuxuu sameeyey adeeg badan oo sameeyey oo raashiin ay ku noolaato cunto iyo cabitaan iyo waxyaabahaas oo kale ayaa gurigii loo geeyey albaabkana waa lagu soo qufulay inay cunto cabto mahjuur gurigaas oo dudunka ah oo korontada lahayn ayaa macnaa biyo oo waxyaaba isticmaasha loo dhigay inay isdadibirto saas inay kusii noolaato adi waxaa marka waxay sameynayeen waqti iyo waqti markii kasoo wareegto adiga oo isdhahayaan raashinka waqtigan waa ka dhammaan raba adeerka markii adoog laakiin nas arko ama nas sheegto ama siirada loosoo qaado dhan waa baxanaaya jira okay miami uu horeeyay waa marka koronto male haweenka dhan ay dhaaday markii boorsada aan furi barto koo waan ku farxay qur-aanka markay aragtay haweenka dhan qur-aan ay akrinaysay qur-aan iska akhrisanay albaabka way ku xireen shubaakoon all the way xataa dhankiisa halkaas meel oo xirmaayo halka qol ay ku xireen halka qol oo albaabadiis oo raro inta ka dhan waa bolol waay anyways meelna ka foqsiin dhinacaas kale halka qor laakiin oo xiran roobna ma kusoo da'i karo macnaha ma kusoo da'i because meel oo iska xiran waay oo halka qol oo macnaha la dhahayo laakiin odayg meesha kasoo helay guri oo mahjuur ah jiniab iska tegay oday iskama maqlaya habeenkii dhan walwal kanna waa haya macnaha hilmaamina yani murugtaana weligeeda wax oo weligeeda arki ama ay maqlin ama sheeko weligeeda ay maqlin la kulanti oo macnaha live iyada ku dhacoy waxaan oo macnaha uur gabar 13 jir 12 jir uur qaaday oo la kufsaday surprise almar shufeerku soo kala wareegtay yani dhanka tashaa'um adoogiyo tumoogis oo gacanta waa jabsantay way duubantahay gacanta dhan gacantii iska jibiyo aabo waa la duubi waa duuban tahay xanuun gacantii walwalkii dhiigii hoos iyo jinni meeshaan hadda lagu soo xiriyo aabihii dhanku isku soo fogeeyeen macnaha qoftii dhankeeda qof waalan camal ay noqotay qur-aan akhrisaan bilaabtay xal kale waa waay dhaad qur-aankana akhristo wax ka fiican inaas adduunka jirin codkaan iyo codadka ay maqlays gurigaasi oo macnaha naxtinka leh iyo bilaas codkaas yani sheegaya qaraf iyo qashafkaaseti iyo magaala ka dhaweyn wax ka dhaweyn dad cod bini'aadan is arkeenin gabadhii marka rafaadka adduunka marka la kulantay qur-aankii iska moodmoodays qur-aanka iska aqrisanaysa raashinkii khalaas way qabatay macal ayaam maalmihii sidii oo maalintii koo walwalka zaa'id u ahay maalintii ilmaan walwalka ay yaraado mar soo noqdo mar aan yaraado walwalkii waa ka yaraaday way la qabatay meeshii way la qabatay codka iyo jaqaf iyo qarafta ay maqlayso way qaraftii way la qabsatay ay la qabsato maxuma marka gabadhii sidii adiga saaseetii bil laba bil saas iyo arrinta ugu socotay bishii afraad bishii shanaad maalin ayay arkaysaa cod bini'aadan ay maqlaysaa oo qoraxda intay dhicin maqrib soo dhow yahay cod bini'aadan ay maqlaysaa waxay dhahdaa dariishadii soo joogsanay shubaakaday soo joogsatay waxay arkaysaa gaariyaal ilaa 5 gaari wax gaaraya camal ay imaanayaan oo rag dhalinyaraha wada saaran way soo degayaan maqribaa la gaaraa waxbay meesha raashiin ay ku samaystaan fan ay samaystaan way ku farxaysaa bini'aadan ay arkaysaa meeqa bil bini'aadan ma arkin yani ayada jiniyaalkaas ay noolaayeen laakiin jiniyaalka ay nooshaayeen iyada markeed macnaha dhibaatadaas weyn ay muugeysaneen qur-aankaas iskaga difaacaysay so subxaanallah sidii ilaahay ku mootinay marka wiilashii dadkii dhalinyarada markay aragtay way ku faraxday cod bini'aadan ay arkayso wanaasay u noqotay wax oo macnaha oo hawada ku bedelato farxad oo macnaha weelna heshay dareemaysa laakiin macal asaf shadiid 2 saac 3 saac camal ay nafsirkood meesha fan ay ku samaysteen macnaha fankoodii baashaabkii qosolkooda markay dhammaysteen way baxayaan haddan maalintii kale filihaysa ma imaanin marka waxaa laga yaabaa iyagana naftirkooda waxay noqotay
every 2 weeks camal ama labadii isbuuc ama saddexdii isbuuc hal maray marka ay soo kulmayaan ay soo noqonayaan. Marka ay maqash codkoodana imaadeen haddana waxay noqotayba inaa oo mashil ay ka daydo oy maqash ay fiirsato codkooda ay maqlayso inay codkooda ay maqasho waxaas ay dhegaysato. marka codkii maqlaysaa codkooda inay maqasho codkeeda dhegaysatay way ku farxaysaa wehelay ka dhiganaysa. marka maasha allah wehelas u noqday codkaasi ay maqlaysa dadkaas meesha ay joogsa arkayso dhalinyaradii. marka waxay dhahday maasha allah alxamdulillah at least hawaasu daday arkoosa bini aadan arkso wehelay heeshi camal adiga saacadoon yar le waaye fankooda waxooda markay dhammaystaan way iska dhaqaajinayeen. adiga marka haweenkii marka intii la gaarin maalinta kale iyadoo maalin cadday ay tahay waxay samaysay way soo baxday qolkeeda waxay aragtay meel kale oo mustawdac camal oo xiran oo albaabkiisana quful ku xiran quful oo waxa waaye macnaha oo mirri يعني guri wax waaye sidaan sheegay oo old oo bolol iyo min zaman uu kala guri sanooyin xiran yahay guriga macnaha waa dudum hataa roob waxa baab iyo dhankiis waa bolol. marka albaabkii marka oo art meel baab xiran oo mustawdac camal inta maxaa ku jira isdaaday marka fiiri inay ogaatay rabtaa marka adiga qufulkii ilaha xarbisi inay furtay taraay gareys waa ilaha xarbis qufulkii markiiba mir tacbaan ahay si la xarbeys oo u jabay albaabkii furtay meeshii markii iska furtay waxay arkaysaa meelan guri caar oo dhankiisa oo انت ماشي ku jirtaa xoogaa yar oo adeerkii waa gacanta ma marsiin oo rom inta laakiin meel oo dhankiisa duf baxay waa duf kacay. adiga almuhim sidii meesha soo gashi wax kala choice ma haysto qoftaani no meeshii soo gashi gurigeeda caadi ah noqday khalaas bilooyina ku degay ku jirtaa meeshii sidii u baaraysi waxay arkaysaa armaajo oo xiran. armaajada markay saa u furto waxay arkaysaa mindiyaal absafan mindiyaal oo laakiin iyaga naftarkood mar hore mindiyaal iyo waxa oo qanjar kuwiiso aroosatay marka laakiin sanooyin meel ku jiraan way soo aroostay boorsadeeda ku shubatay marka boorsadeeda ku shubatay waxay ku fikirtay idan meeshan kaliya ku jirtaa haddii lacalla oo macna isdifaac wax kasta dhac karo ma ogtid wixii adduunyada ku khariyoos wixii ku dhaco waxaas adi at least wax isku difaacdid aku noqdaan xataa عامل إسدوسا مسكين إلمنا واي أكتاي مال الدنيا معناه يا سبحان الله عز وجل. anyways قصوين وحول بايد عاية anyways جودي مركب من ديالكي بورصة يكشوتي البابكي مركب الباب كلا سيليا مركب أودنا أو بنانكو سيبحناي البابكي أو لقيسو قليك إهن الباب كلا واسيليا أو سين نعكلا يسيبحاي أو كلا هذه البابكي كلا ساعة تراي جرس وفرمي لكن إذا مجال ما جوكتو مريكو فكرتي إني داهدو خلاص عر مش أنا كديرة وحسمي وعصب أتليس بمجال تتكلم الأركيسة أنتي كوجيها يعني فملكاية كده فملكاية أنتي كوسؤالي هاي إيه ملك حون عمدي كلا وابكو دلي عاب وابكو دلي عاب تكلم وإس الباب كيس كسو حرتي الباب كيس كسو أول معنا ربصو سيسي وهيسو لاوت إيدو مرق تدونك هاي سو ومعنا talo gacanteeda ma ku jirto wax oo maanta ay ku fikrayso oo sax ay go'aan ay gaar karto oo nasaxsan yahay ay ogtahay ama ay hubto ma jiro because iidana ilmay ka tahay adduunyadan iyo waxaan ku dhacayna waa mar oo macna arin iida ka weynaa ku dhacday oo maanta ay dhihi karto male oo xalkiisa saan way saan baa ku xalina saana macna ay fiicanta inaan ma sameyn karto absolutely because ma oga wixii saxsan wixii qaldan tan haysatan to iida ka weyn way. so qolkeeda iskaga soo noqotay nolosha sidii dadkii u xiistay dhalinyaradii u xiistay adiga sidii maalin socotay arintii bishii calooshii way sii weynaatay bilka bacdi way soo daahay safarkan haddana adi sagaalkeeda ay gaartay xanuun iyo wareer iyo waxyaabo dheeraadka oo dadka uurka leh macnaha oo macnaha dareemaan iyo ka daran iyo duruuf xumo iyo murug iyo fikirna oo dheer ay qoftaaneed. المهم dadkii yaa soo noqdeen way farxday oo way dhaad ma sha Allah alxamdulillah dadkii markii maanta ay soo noqdeen wax different dhacay markii maanta maxaa marka different dhacay dadkii المهم markii soo noqdeen maanta waxay u talagaleen xoogaa inay meesha ku daahan raashinkooda waxay inoo sidii wataan marka qoryaal ay u baahdeen geedad oo macna inay gubaan oo raashinka ay wataan ay kalaan ay ku dubtaan u baahdeen marka wiila marka soo baxay dhalinyarada todoba oo kala waayay mida marka soo baxay
oo wax raadiyaha geed qoryaal wax lee raadinaa marka oo inay dab ay ka shidaan macnaha adig si soo socday gabadhan shubaakada joogtaa waa iskaaga miskiinta oo iskaaga wehel ay ka dhiganaysa iska fiirinaysa iskaaga faraxsan tahay wiilkaa marka si meesha qori wax uu raadaya uu soo dhawaadi shubaakada iida ay saaran tahay mix kusoo dhawaadi saanas dhahay subxaanallah ishiis isheeda ay isku dhacay way aragti inuu arki iyo dhankeeda way naxday wuu ku arki asigana wuu naxay yacni meeshaan oo mahjuurka gurigan oo dudunka oo macnaa oo boqolaal sano ka hor dhisnaay oo tacbaanka ee bini aadan ku jiro oo dan gabar yar jini waas dhaay marka cuud billaah shaalas bilaayo inas cuud billaah istusda cuud billaah mashta quraas akhriya iyadoo ay taagan tahay asiina wuu fiirinayaa jinis arkooyaas bis laakiin mushkilad jirta maantana early imaadeen galabnimo imaadeen yani qoraxda wili taagan jin oo qorax taagan arkay laakiin meesha ku jirto meel mugdi waayo mugdigaasna ma tabcan qoraxda aftiinkii wixii waa la arko waadax waayeedo aas oo jeeda asay soo marka waxa isleeyahay bin aadami jinimi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قرآن وبلا وانين أوسنا وحس آية وقلب أذقو أو مرك إنس ك دبجلس كسمة سو وجاد الصوب صد سرواب وانين نحين ما شاء الله سينو جزء وسو ريكتي الباب كي أو إيل إدافسي الباب كمنا حرن متك أبي يقفل وين كحرن قفل عصو يكحرن ووس جدالس كسو ريكتي الباب كي إذا يفرسي ومعنا ماشي يقفلك يجيب ناسي الباب كلاس ليه كحيجو سيداني وشاي أو إني كبحر حتى يتمعضي أو يدنا أسور تجلويسي ده هذا ماي مشان هذا بحو وديت بحث تتجي مجال معنا المهم حيث ماسي الباب كي مرك أسكسوريت الباب كي مركز الصريحي وإيل نايل وصفرني الباب كي وصفرني جودة الصقلة يعني صبص سروا قرآن أخرس إنه هاي ويلك قرآن أخرس هاي وصل قال الباب كي خفلك مر يجيبي هي سو قد بي خل كذا سو قال ويتاج أنت ويلي أرتكوس السلام عليكم وين أحسن تاي مرك وعليكم السلام ومعنا بنادم ما تاس ده مسجني هتاي بنادم عائلة أوكي أصدق ما حكى لي عندك هاي سامرك دار كذا هذا ميل يكون وشاي وترى ممكن تعمل بنادم يكونوا له راشين كلا عني صحن وحياة وهذا معناه ميل ونولي على كسر anyways يعني ماشي نكون وشاي وجيدا كلا جد نواي هاويس ده فمي كلا جامي يأكل الجو أوش نشوف تاجن تأوري لا سقال كذا واي يعني وخرص معنا معه يعني أورن لا هذه شكوين بشكل هالبدن عنك سو أورمي يعني محاوص دومتي ملو أوكي هالكلام أوكي عندنا أنت جوكتي مسنا دشت يعني أرنتي المهم وايس فاهمين أرنتي ناس بنادي إن بنادم تهي وأقول هاتلي ويلا هذا الشيء وهو بصدق ناس بنادم يتهي مركز صودا أوكي هذا أصلا كان دليل رضا إلى جيران وأنا إيجي شكي عم إنك وقالنا حتى ترمين وحنسمين هنا دليل رضا حد ولا نقنعني أرمين ممكن ودماته ولا نقنا marka iiga magaalada meesha ka iman xaafadooyinka uu naqano kaligay ku soo naqana arintaadan raba inay iga sheekaysid si fiican aan horta ku sidii aan ujeedo gabar waxa tahay oo dhibaataysan way iska oynay markay hadlaysataa dhibaataysan wax hadan ka qaban karo inuu wax ka qaban karo aan fiiriyaa raba dadka markaan celiyo ku soo laabana xakim okay way marka adigii dadkii waqtigooda markay ay qaateen wixii raashay fankooda wixii uu meesha u imaaday meesha uu imaajireen ha u badashalay wixii markay dhamaysteen way naqdeen xaafadood markay loo laabay wiilkii xogaasi u sugeysay waxay dhacday kii uu iloobi ama leena hadda marka ayaa adduunku furmeys xanuunkiina waxaya sagaalkeeda way yani ala washk inay dhasho ayaa u soo dhow marka ama soo naqaneen المهم جاري أصلا قلاي ماشي دريت الحمد لله فرح أفتين سويس جاري أسجي ويلكي وماذا وصل قالي شيء كده إنه وكفهمي نحريز جونا صقش مركز لاي ما خسنا كترتا مركز هذه سدح يستمر سنة حدا يبيع سنتي يعني تمن سدح سنة واحد يبيع سنتي لكنه ده سيال جيل عملكم ملينا يعني قياس كذا إذا ما كل أركب سيدي برير تهد يلوون تاي وقاون تاي يعني سجال سنة عملها سيني قف تاسد كي دمعي كورم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم anyways مركا قبلي ونيجا حوضاي خلاص يعني مركي وقت جيف كلا جاري حوضا نيجا جاري كان ساحنا أذيجا ساحو صباح دي هدنا وحين كو خبا كرا عن صوب عن فيرنينا وهيل سو نقضو جاري وساحنا بنانكا يدي وجيدو
way ku niyad dhisay because hadalooyinkeeda iyo wehel aan ehel wax la-aanteeda iyo rafaadka ku arkay wuxuu marka jeclaystay inas asiga iyada iska dheeraanin gaariga iyado macnaha ay ku seexato inay dheesahay qofaab marka aad joogo meesha ficlan maxay ka ugu sheekaysa marka imaadiina dhahda dareen oo waxaan dareemaa dhahd inaan dad arkay inaan wehel meesha ay joogaan wax badan oo fiican oo dareen fiican aan dareemaa hurdada taas si fiican aan u seexanay because wehela meesha jooga maanta sinay arko wax badan aan iska bedelaa biniaadanka ilaahay markiis yani biniaadanas arko subxaan allah wax muhiim oo shay muhiim waa ilaahayna u abuuray so subxaan allah gabadhii marka sidii banaan gaariga oo seexanay adiga wuxuu dhahay marka mar xanuuna kusoo kacay nas dhahay dhegeyso anigoo kuwadaha isbitaal aan ku geynaa ehelkii wixii waa ogaanay arrinta waa sii xumaan akacabsan nas dhahay ana kafaal qaaday anigu halay isbitaal waxaan kasaa wiil oo aydeed habaryarteeda dhashay ayaa meesha wax ka mutiir meel weyn ka haysto akacabsanin wax mana loo weydiinay anaa kafaal qaaday inaa meesha lagu dhaleysiiyo oo wixii dhan la dhameeyo almi gabadhii waa lagu soo booday inay khalaas waayey fooladiyaasoo imaaday inay waxay ku khasbanaadeen marka aswado isbitaalkaas geeyo intaas dhan waa la soco jiray wehel uu ahaa jiray marka wiilkii isbitaalkii geeyey waa dhashay wiilaa ilaahay siiyey intaas dhan ehelkeeda way gooyeen ehelkeeda khalaas way iska hilooyeen inay bis waxay u qeybeen inay dhimatay bis aabartu waa ku farxaaba maala wada aabaheeda inas dhinto inay dhimatay iska rabaa khalaas waa ka go-day waa ka dhimatay xaggiisa meesha ceeb iyo wax uu maalaya oo kale anyways biniaadan walba weyba ilaahay macnaa waxba caadatu taqaaliid wax la dhahaa jiro macnaa dhaqan iyo waxay u leeyihiin gabar hadiiba macnaha khalaasoo uuri waxa oo fitna waxaas imaaday asiga sharaftiisa dhan meelaa u dhacday meesha as sharaftiisa iyo xumaaleed dadka axsan iidanay dhimato ayaa ka sahlan ka dhaadhacsan dadkan almuhim isbitaalkii wiil ay dhashay wiilka laakiin naqaska ku xirmaayay because wiil oo macnaha maasha oo wax ku dhashtay maahan wax sidii la rabay macnaha caafimaadkeeda raashin mar walba ogtahay doctor marka waxay u taabacaan naagaha oo macnaha uurka leh sidii oo janiinka ama cunugaaseeti oo caafimaadkiisa lagu keergareeyo soo caloosha ku jiro laakiin qoftaaneeti waxaas ma haysan cilmi cunugii rafaadkii wixii waqtiga qaabilooyin isbitaalka isku jiray waxay dhaheen nina oo wax la geliyo waa wiilkan oo isbitaalkana laga bixiyo ma aha daawooyin wax sidii oo ilaahay oo dis ilaahay caafimaad siiyo isku noolaado haddii kalene wiilkan 100% oo siibana oo kale caafimaad fiican ku dhalan almin wiilkii uu isbitaalkii lagu reebay gabadhii marka wuxuu dhahay haddaba dhalinoha markii isbuuc kasta wareed isbitaalka ku jirtay caafimaadkeeda oo kale soo noqday ay ka soo joogsatay familkan ku geeyna dhahay marka familkii waa idilayaan ka cabsinas dhahay taqtiigada fikri fikrad fiican maskaxdeeda ku jirto fikradaas hadii ilaahay uu najixiyo yani okay way hadii soo bax ana kafaal qaaday oo waday gaari uu soo waday markii gurigeeda adreeskiisidii oo tilmaamtay markii xaafadii la geeyay gaari aabaheeda waxas fadhiyaa albaab banaankiisa fadhiyaa guriga albaab banaankiisa fadhiyaa laakiin wiji ma siinaa anyways gaari ku jirto idan oo soo degin kan gudaha adeerkeeda joogi nasiib fiican nasiibkooda fiicnayba adeerka joogi oo macna at least wiji siinay warka maqlay aabaha laakiin inas wax dhageysto ama wax maqlo dhan diyaar mu aha bas absolutely adeerkii mar gudaha ku jira adeerkiisa gudaha u galay oo isla hadlay arintiis fahansiiyay waxyaabo badan oo sheegay wax soo sheegay iyo faraxsan adeerkii markuu dhahay gabadheeda oo maad adeerka bimaad albaabka ka furay gabadheeda soo deg habosiyay gabadheeda alxamdulillah salaam ilaahay salaam ku soo kiciyay alxamdulillah rabbil alamin gudaas galiyay farxad hooyadii wixii wiilka maxaa soo sheegay dhosatalo wiilka maxaa soo sheegay dadkan oo saan ii soo dhaweeyeen farxad laak aabaha kali qofku wiji isii hoon aaba la ka jira wiji dhan abdiyuraati isiinay farxad iska dhaaf wax ka muuqata mal ma isoo fiiray xataa inaan joog in kala dhan xataa wax dhan ii sameeyay adeerkii wixii walaalaheeda kala wiilashii ilmi wal soo dhaweey qolkeeda loo firaash qolkeeda gashay wiilkii markii sidoo dhahay khayr badan ku rajeynaa insha Allah iska warhayna wiilkii talo maxuu sheegay marka adeerkii familka maxuu sheegay wuxuu dhahay ana guursanay ana rabo inaan xalaalsado gabadhan arintii dhan wiilkay kulli asaa kafaal qaaday anyways wiilkii wuu baxay iyada laakiin wax war mu haysta arintaas dhan ila wiilka xasheego ku soo iska warhayeen asdahay
yacni dhahday aada u farxay raganimaduu sameeyey bini aadanimada islaamnimada wuxuu sameeyey yani dhifi naadir waa qof soo kalena sameeyo oo meeshas mahjuurka oo iskula joogo. marka almuhiim isbuuc laba isbuuc malaag soo wareegatay, wiilkii oo imaaday, aroosna loo dhigo, nikaaxii wixii dhan la sameeyo. gabadhii aaday u farxday marka waa lagu soo doontay la dhahay, qofaa kusoo doontay arooska nikaaxa la dhigaa, iyada ma ogata asnas yahay. asaa kusoo baxay, gurigiisu firaashay, diyaariyey, gurigeeda u keenay magaalada xaafadiisa meelahaas degnaay asiga oo guriga ijaartay isu firaashay. farxad waa lasoo koobi karo maaha oo macnaa oo sameeye. iyadii marka mar walba waxay rabtaa inay weydiiso wiilkeyga xaaladiisa see waaye. waxaan ka baqaaya dhowsa iyada haddaan weydiiyo osu dhow wiilka waa dhintay, ina arrinka xun ama arrinka dhaawac badan ama arrin oo qalbigeyga dhaawaceyso oo markaas xanuun ii keenays inaan maqlana ma rabay. so taas waa inaan weydiina waa rabaa, waa isceliyahay dhahday, inaan weydiiyaan rabaa, waa isceliyaa wiilkeyga xaaladiisna dhaho ma weydinay dhahday. almuhim gurigiisi keen, gurigii marka qolkeyga waa kana, qolalkiisa qolka jiifka waa kana, jikada waa kana, intaas martiyeen gurigaaga waaye waxyaabahaas aynkaas oo kale. farxaad iyada ku nooshahay, yani familkeyga soo baxday, wejigii fiican aabaheeda siiheeni, haddana isguursaday qofkaanato oo macnaa maasha allah. waa seexanay dhahday haweenkii, daalkii iyo madax xanuunkii iyo wixii macnaa iyo farxadii. subaxdii aan soo kaxay dhahday, codaa maqlaa sariirta ma qof ii saara ma, laakiin codaa maqlay dhahday. codkaa maqlaa waxaan arkaa wiilka soo guursaday iyo igaarkeeda oo dhedheelsiinayo. farxada kusii kortay maasha allah. dheelsi wiilkeyga maahino ahaa, wiilkaaga waayo. haddaas dhahay waxaan sameynaynaa maxkamadan aan tagno oon magaceega kusoo qoran rabaa wiilka, in ani dhali magaceega kusoo qoranaa. say u arkaysaa oy okay waayo, macnaa noloshayna meesha inay kasii socoto, farxadaadana u noolaada. ana aadan ku jeclaaday, macnaa jeceyl aadan macnaa weynaan ku qaaday, adigana inaa farxadaada ka taliyo waxaas. maxkamadii markay tageen, adigaas dhahay xaaskaaga kala aawi, waa furiyaas dhahay. marka waa iskeeni weyn, waa furi. ilaa ninka xaasoo lahay laakiin wuxuusoo u sheekeeyey inaas gabar kale sir ku qabo. tan aska wada maana siran gabar kale sir ku qaada. gabar maadaama gabar kale sir ku qabtid, labadiina misal qabeys iskay fur. wiilkii wuxuu sameeyey, taasna ma fiicnan anay kule sheeka taas weegaas halaas dhinacaas yar miga cajibin, laakiin macnaa wax fiican uu sameynaya wiilka. laakiin xaaskiisa oo soo furay ina macnaa iyadii markay dhahday maadaama oo qof qabsireed ama qof oo sir ku qabtid, gabar kale sir ku qabtid, ani ma qabaysid, waa inaa furtaa. soo gabadhii oo furay tanas markaa nikaaxii waraqadii wixii sameynay, wiilkayna asiga dhalay as magaciisa ku qortay. midaas marka meesha ka bixiyey sidii gabadhan asu asturo oos oo soo bixiyo dhibkaas ama dhibaatadaas ay ku jirtay, ama nolol baaba'aas ay ku jirtay oo isku soo celiyahay nolosha adduunka. yani ilaahay bacdigiisa, yani sabab oo nasu noqdo. so marka ilaahay marka khalaas sidii marka iyagana laba wiil kale u dhashay iyo gabar ay usii dhashay, noloshooda farxad iyo waxay ku noolaayeen, jeceylkooda waxooda okay. meel walba dhibaato dhan kale macnaa ilaahay ma tusin. gabadhii marka baaba'aas iyo rafaadkaas iyo jiniyaalkaas iyo codkii ma maqleysi iyo rafaadkii la kulmeysi gurigaas ay bilooyinkaas ku jirtay, macnaa oo iska bixiyey. yani ilaahay bacdigiisa sabab asu noqday, macnaa ilaahay ka bixiyey laakiin sabab asu noqday asiga. so qisadaas markaa aan dhegeysanay, tabcan sheekada waa sii dheerat, intaan waa ka dheereed, laakiin aniga waa soo gaagaabi intaan soo gaagaabi karo, because waxaan leeyahay hadii sii dheeraato oo macnaa laba qeyb ka sii dhigtid. dadka badigood waxay dheheen labada qeyb sheekada laga soo dhigay hal mar soo gaabi, axsan halka soo dhig. so marka inagana tacliiq hoos ay ugu soo qori kartiin oo ah commentiga. haddaad arkaysa xataa sheekada haddii siyaarta oo faahfaahinta si fiican oo si dhegeystiyi rabtiin oo dhegeysan aad kasoo kala goynin, hal lama saddex kasoo dhig xataa dhib male, ama nus saac taa waa dhegeysanayna. please commentiga soo qora, subscribe iyo like sharekana ay ka iloowina ani ininka ii sheeg kala saanka macaan badan iyo kulan dambe. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.